aad baan u faraxsanahay sababtoo ah soo dhaweynta u horeysa ay maado inta musharaxiin aad iyo aad aan u faraxsanahay waa maqalnay abshir cumar huruuse waxa ku soo dhaweynaysa kooxda koonfur galbeed anigoo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Nugaal Faadma Axmed Nuur Beergaal waxaan soo dhaweynaynaa abshir cumar huruuse magacaygu Sheekh Cabdirashiid Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah dalada culimada magaalada Garowe waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo musharax madaxweyne abshir cumar huruuse waa Sacdiya Daahir Axmed maanta waxaan halka u taaganahay saaka laba saac u istaagay inaan abshir cumar huruuse halka aan ku taageero aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana dooranaynaa insha Allah anagu hadaan shacabka nahay reer Puntland musharax madaxweyne waxa weeye musharaxiinta waa ay kala duwan yihiin waa ay kala xamaasad duwan yihiin musharaxaani haddii aan fiirinay bulshada reer Garowe waa musharax aad iyo aad ay u soo dhaweynayaan nooc kasta bulsho weynta isugu jirta halkan waxaan u fadhinaa oo u taaganahay qoraxda musharax abshir cumar huruuse musharaxiinta kale aad iyo aad booga duwan yahay waxaana noo muuqata inuu madaxweynaha Puntland mustaqbalka yahay magacayga Shamsa Maxaa Cali baa la dhahaa dareenkayga la soo koobi maayo madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa waa ku qanacsanahay insha Allah biidmillah waxaan rajaynaynaa inuu ku guuleysan noqdo insha Allah magacayga waa Shariif Maxamed Diiriye oo maanta saaka hal saac u soo istaagay barxadda u taagan oo ku soo dhaweynayo abshir cumar huruuse insha Allah waxaan sugaynaa inuu madaxweyne fiican noo noqdo alxamdulillah rabbil abshir waa guul baa u rajaynaya guul gobonimo magacayga waxa la dhahaa Maal Axmed Aadan aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta in Garowe lagu soo dhaweeyo abshir cumar huruuse aad iyo aad baan u taageersanahay dhammaan shacabka halka isugu yimina waan salaamaya